بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد أيها الإخوة إن شاء الله تعالى وعن هل كان كسو جيدين يا قصة لبعض إن شاء الله تعالى وكمدة من قصص القرآن هوري في سورة البقرة وحن قصوا هذا قصة دي ماركتي سورة اللغو مقعابي وماركتي بقرة دي waxaan halkan insha Allah taala kaga hadlaynaa qiso labaad oo isla fi suurat al-baqara ku soo aroortay waa qisatu Talut wa Jalut Talut iyo Jalut qisadani walaalayaal waxa weeye waa isla qiso reer bani Israa'iil maaragtay dhaxdeeda dhacday waa taan ka soo hadalnay reer bani Israa'iil waa nabi Allah Yaqub alayhi salaam isaga Israa'iil la dhihi jiray labiyo tobankii wiil uu dhalay oo nabi Allah Yusuf iyo Benyamin iyo tobankii la dhalatay labiyo tobankaas ayaa waxa ka mid walba wuxuu noqday qabiila labiyo toban qabiil oo asbaad la dhihi jiray ayaa waxay ahaayeen banu Israa'iil marka banu Israa'iil Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax badan ayuu siiyay nabiyaal baa la siiyay boqoraa la siiyay maaragtay كتابك التوراة بالسيي هي صحفتي داود زبورتي نبي الله موسى عليه السلام كذب مركي التوراة لسيي مدة أي وحي قصقنايين إني ماركتي كتوصنادان دينك إلهي سبحانه وتعالى مدة دي أي دين تكتوصنايين وكتاب كود أي مارتي كتوصنايين وحي أهايين ضد ماركتي boqorro leh nabiyaal leh markii nabi uu baxaba nabi ayaa iimaanayay boqor ayaa iimaanayay marka niman waxay ahayn cadawgooda ka adag oo guuleysta sidaas ay ahaan jireen marka badana marka waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala amarkiis waxa u qaybsanaa boqorrada iyo nabiyaashan waa u qaybsanaayeen oo sibti kamida asbaata ama jufa kamida jufooyinka reer bani Israa'iil ayaa mar walba waxa Ilaahay ka soo saari jiray nabiyaasha waxa la dhihi jiray laawa qolo kalena waxa laga soo saari jiray boqorrada waxa la dhihi jiray yahuuda marka reer yahuudana waxa ka iimaan jiray boqorrada reer laawana waxa ka iimaan jiray nabiyaasha ka iimaan jiray inta kalena waa raaci jirtay marka iyagoo xaalka sidaas ah ضعف بدن يكفوغاش دينك إلهي أي سمايان إلى قاركود أصنامت أي عابدين مركز باوحا دعدي إن عدو جودي وكأت كاظو إن للايو إن هزائم إزدوجوجا يجب فر بدن أو مربا أي دجال قلم بالسوج بيو طول بدن لقى قبصدي هوانكي مارت لقى لو ريجي عرورتي لقى كحيستي جريوه دي مارت لو ريجي دبا تفر بدن أي ماركتين مانكي كود عدي kadib markay hore u ahaan jireen niman ayaga mar walba guusha xaqooda ay marto oo guusha ay raacdo waxyaabaha marka guusha marka dagaalada galaan ay isticmaali jireen waxa kamid ahaa in ay maxaan ku yiraahdaay waxay haysan jireen taabuut ama sanduuq weyn oo dhirirkiisuna culimada ay ku sheegeen maarta mufassiriinta ilaa 3 dhudhun bal ciisana dhudhun uu yahay oo ay nabi ilaahi Muusa alayhi salaam iyo nabi ilaahi Haaruun aathartoodii wax kamida iyo ay ku jirto ay haysan jireen markay dagaal la galo macrakada iyo goobta dagaalka keeni jireen waxay heli jireen sakiina iyo xasilooni ayaa ku soo dagi jirtay guul iyo nasrna waa heli jireen marka waagii dambe markii in badan la jabiyay oo dib ku dhacay oo diintii ay ka fogaadeen waxa markii dambe ku dhacday cadawgoodii oo ku soo duulay inuu taabuutkii ama sanduuqii laga qaato arintaasi waxay ku riday murug fara badan naxdin fara badan iyagoo awalba maartay jab iyo haziimo ay ku socotay in ay wixii ay markaa barakaysanayeen oo ay maartay waqaarka iyo sakiinada ku helayeen in ay waayaan dib bay ku noqotay marka xaalka saas uu ku noqday haddana waxa kale oo ku dhacay nabiyadii ka soo bixi jiray ayaa ka go'ay nabi dambo soo baxana waa laga waayay boqorna ma jiro boqor soo baxana ma laha dad isku mid ah oo isu matalisa ah oo isma dhaantiga dhasheeda oo wareersan
oo aan nabi hayn oo boqor hayn bimacnaa waxa ku dhacay hoggaan la'aan umadna haday hoggaan la'aan noqoto waxay noqotaa si kastay u badan tahay ama wax qiimo u lahaan jirtay waxay noqotaa umma mahzuuma ummad maaragtay jabtay ay noqotaa marka saasa ku dhacday nimanka marka waxa dhacay in badan bay maaragtay arinta u hanqal taagayeen waxa la raadiyay nimankii nabiyaasha ay ka soo bixi jireen oo reer laawo ahaa reer laawo hadii la baaray lagama helin ilaa maxaan ku yiraahdaa maaragtay islaan xaamilo ah ayaa maaragtay laga helay islaantaasi xaamilada ah waxay maaragtay hadii Ilaahay ku roon yahay uur bay lahayd marka waxay yiraahdeen islaantii bay meel ku xireen meel adag baa lagu xiray waxa la waardiyeeyo ayagoo rajeynaya in islaantaani waxa uurkeeda ku jira lacalahu inuu maartay nabi noqdo ama faraciisa nabi ka soo baxo maadaama cidaasi ay maartay nabiyaashka marka naagtaasi ninkeedina waa dhintay dagaaladii ku dhintay waa kaligeed uurkaasi leedahay islaan saalixada bay ahayd waxa dhacday marka islaantaasi in ilaahay ay bari jirtay subhanahu wa ta'ala waxa caloosheeda ku jira ilaahay inuu ka dhigo marka koowaad waladan dhakaran inuu wiil ka dhigo marka labaadna ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu nabi ka dhigo maartay nubuwadi uu siiyo ayay in fara badan ilaahay ka bari jirtay subhanahu wa ta'ala ilaahay waa ka aqbalay islaantii wiil bay dhashay markay wiil dhashay waxay ogaatay ducadeedii qaybtii koowaad in la aqbalay marka waxay u bixisay shamwiil ama shamcuun ama samwiil saddexdaasba waa lagu sheegaa shamwiil oo macnaheedu tahay sami'a Allah ilaahay wuu maqlay bimacnaa dacwadeedii iyo ducadeedii iyo baryadeedii ilaahay waa maqlay intaasayba magac uga dhigtayba wiilkii falamma balagha mablagha ar-rijal markii uu weynaaday uu soo gaaray maxaan ku raahdaa waqtigii nabiyaasha daadii lagu soo saari jiray uu soo gaaray haddana ilaahay waa u aqbalay subhanahu wa ta'ala ilaahay nabi buu ka dhigay marka meeshaasi nabinimadii markii ay timid oo la ogaaday ninka inuu nabi yahay ayay nimankii reer banu Israa'iil odayaashoodii iyo waxgaradkoodii waxay u yimaadeen nabigii Shamuel nabi ilaahi Shamuel u yimaadeen alayhi salaam waxay yiraahdeen nabi Allah waxaan ka rabnaa ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah waxaad noo soo saartaa boqor naga soo saar oo maaragtay markaasi aan taxta raayatihi aan gadaashiisa iyo calankiisa hoostiisa ka dagaalano oo aan ku guuleysano mar haddaan nabinimadii helno noo soo laabatay boqortooyadii baa noo dhiman marka saasay ahaan jirtay nabi iyo boqor marka ilaa waxay yiraahdeen naga soo saar oo soo bixi waxaad naga dhex magacawdaa boqorkii siyaasadda iyo dagaalka iyo hoggaanka iyo maarta naga soo dhex saar bay yiraahdeen marka sida ilaahi subhanahu wa ta'ala quraankiisa ku sheegay alam tara ila al-mala'i min bani israa'ila من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إلهي وحير سبحانه وتعالى ألم ترى مياذا أوغي النبي الله إلى الملأ إلى قصة الملأ قال ذي قصة ذو موادا أوغي من بعد موسى من النبي موسى قداشي إذ وقتي ماركتي إذ قالوا للنبي له مبعث لنا ملكا مر وقت أي راهدين ابعث لنا إذ وقت قالوا أي راهدين للنبي نبي جودة ابعث لنا وحد نقص وصارتا ونصب بحساب ملكا بقر نقاتل في سبيل الله إله جد كيسان مركز قد قالنا مركز النبي جواي قانين ما كان نمان بدن هايين بلن كم حياة بدن آدي اسكد بوريك فر بدن لا هذا الكود أن مارت سهل لو قادن كريم وحير هذا قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا هل عسيتم ممودنتين إن كتب عليكم القتال هدي اللي يدون كفر ضيال الدقال كاسي ألا تقاتلوا إن الدقال مويسان ما دعي كرتا صورة قل متهاي إن هدي بقر كاس آن إذن كسو نحساره إنا الذي هو كد دقال لمنا إنا راعي ويسان وكد دقال مويسان وأقبل ويسان ما لغا يابا
قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله ومحال هانتنا أن أدقى لمينين وقد أخرجنا والحال قد أخرجنا نلكسو بحي ونلكسو صاري من ديارنا قريهيني وأبنائنا عرورتيني أن بناك كتشورنا نلك قاتي أهد بمارته ودارتين فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم مركي دقالكي لغو فرض يالي تولوا واجستين إلا قليلا منهم وحير مويه والله عليم بالظالمين هدبا النبي مركي ساس أي بركة ويديستين وإنتا أي دحمرتي وحاتمد إنو ماركتي ومقعابه بقركي ومقعابه طبعا وحي إلهي سبحانه وتعالى أيونكو مقعابي وحو مقعابينين لديه جري طالوت وريب بنو إسرائيل كمدها ونين إسكع مارتي كغيره من الناس شخصي إسكع عادي oo aan wax gaar ah ayagu ku yaqaanaan aysan jirin hanti badan aan haysanin laakiin nin iska shaqaysta oo xoogiisa maala ah mufassiriinta qaar waxay leeyihiin wuxuu ahaa nin maartay dadka biyaha u dhaamiya oo saa ku shaqaysta qaar waxay leeyihiin maartay kaana dabaaqan wuxuu ahaa nin magdiya maartay juluuda ama haraga maartay ka shaqeeya waxaas u ahaa almuhim ننكاس با إلهي سبحانه وتعالى ننكاس بقر إذن أبو النبي وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا مدهن أنا إذن كسو صاري وحير إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا إلهي وحو إذن سو صاري طالوت حال كونه ملكا أصغى بقر إذن ننكانا بقر إذن هلير لمنك طالوت كي أي قانين باليري أي بقر إذن وإن الرعدان وابودين مركا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه وحير هذين أنا يكون له الملك علينا سيداب بقر دشان ونقنا يا بقر نكان طالوت ونقن كرا ونحن أحق بالملك منه أنك أيا وحق نمبضا بقر تويد أنك كله ولم يؤت سعة من المال هنتئ حورنا لمسين markay leeyeen wanaxnu axaqu bil mulki minhu waxa weeye qoladii boqortooyada laga soo saari jiray oo yahuuda la dhihi jiray ma uusan ahayn taalut qolo kale ayuu ahaa oo maxaan ku raadaaye maaragtay qoladii benyamin ayuu ka soo farcantay ayuu ahaa qolo horay maaragtay boqor uga soo baxana ma ahayn ama boqor hore looga magacaabay marka waxay yiraahdeen annagoo maaragtay boqortooyo ahaan jirnay oo boqorada ay naga soo bixi jireen annaga xaq u leh saaninkan ku noqon kara meesha marka xamiya iyo maaragtay ayaas iyo maaragtay qabyaalad iyo wax saas oo kala ah ayay nimankii meesha keeneen waxay dhaheen suuragal maaha waa xaaladan ku sugannahay waa ognahay inay naga jajaban tahay waa ognahay inaan u baahannahay guul waa ognahay boqor waa u baahannahay laakiin boqor aan annaga jufadeena ka imaanin kaas ma aqbalayna yiraahdaan annagana uga xaqnimo badan laba cilay sheegeen midda labaadna walam yu'ta sa'ata min almaal nin hanti iyo xoolo iyo haystana ma ahan bay yiraahdeen nabigi wuxuu yiraahday قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم إن الله اصطفاه عليكم wax iska ra'yi ah ma ahan buu yiri in Allah astafahu alaykum ilaahi ba dushiina ku doortay ilaahi ba idin ka doortay oo Allah ba doortay subhanahu wa ta'ala war ma jiro mar hadii ilaahi doortay wayna aqbashaan waxa kale jirta wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi wazadahu ilaahi waxaan u ziyaadiyay bastatan si'a maartay fidnaansho fil ilmi xagga aqoonta waanan idin ka aqoon badan oo ilaahi subhanahu wa ta'ala ilmi maartay uu siiyay oo dheeraado in idin ka cilmi badan weyn xagga aqoonta quwwa xagga cilmiga ah ba ilaahay subhanahu wa ta'ala wal jismi iyo xagga jirka iyo haybada waa nin haybad leh aqoonna leh marka ilaahayna uu idin dooray subhanahu wa ta'ala marka waa ina aqbashaan baa leeyahay walidalika marka al-imam ibn kathir tafsiirkiisa wuxuu leeyahay wa minha huna yanbaghi waxa meeshan maartay haboon buu yiraahday
qofka boqorka ah labadaas sifa in laga helo yiraahday waa marka koowaade waa inuu qof aqoon la u yahay oo qof jaahil aan boqortooyo iyo maarta maamul maarta loo dhiibin mid labaadna wuxuu yiri waa an yakuna daa hasanin maxaan ku raahdaa daa husnin qof maartay haybad iyo ay ka muuqato oo markii la arko maartay qurux leh oo jamaal leh oo maartay isha buuxin kara inuu qofkaas yahay weyn marka intaas ba ilaahay siiyay subhanahu wa ta'ala nimankii waxa muuqata marka inaysan wali aysan qancin wuxuu nabiga ugu daray nabi ilaahi shamuel wuxuu yiraahdaa marka ninkaani marka inay xaalkiisu saayahay mucjiza la socota leedin tusaya calaamad aayad ayaa la socota waxa la yiri wuxuu nabigu in qala lahum nabiyuhum وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت وحا إذن تسينايا إن بقرطويديس حق إله إكتمت تابوت كي آد ويسين أو أبر ورانيسين أو آد محانكو هذا مدويسين أو آثارتي يرادتك نبياشي نأي كجرتي أو بركيسانيسين آيا مارت إذن إيمانيا لين فيه سكينة من ربكم وحكسوا سكينة يحسلون حق ربنا كأهاتي إيه وبقية هرادي أو كمذا مما ترك آل موسى وآل هارون نبي الله هارون نبي الله موسى مارت رادت كودي كمذا علماء وحي شيغان أشي نبي الله موسى أيا مارتي كجر تبالي هذا الواحد التوراة يكو قرنات با مارت قاركود كجرين إيه آثار كلو مارت النبياشو أي لهايين أيا كسوان تحمله الملائكة يضو أي مركاسي وضان أو حنبارسين وددامينيان ملائكته أي ودو سيدا أي مارت مفسرين تقار شيئا سيدا عبد الله بن عباس وحير هذي وحا سوقاد ملائكتي بين السماء والأرض دلك إي عرك انت قد حيسا أيا لسو مريي تابوتكي أو مارتي هالكاسي لوضو طبعا مركي دلك إي عرك انت قد حيسا لوضو قف كستا oo la soo dulmariyo waa arkaya soo gurigiisa jooga ama maarta suuqiisa jooga dadko dhan baa wada arkay marka waxa loo keenay taabuudkii oo ay yaqaanaan oo alaabtii ay yaqaaneen ay maarta ay ku jirto oo zaman hore ay ugu dambeysay ayaa meeshii maarta la keenay marka waxay noqotay marka Taalut inuu hawshiisa qabsado inuu maartay abaabulo maartay ciidan oo nimankii cadawga ahaa oo nin la dhihi jiray Jaaluut oo gaal maartay ahaa dib badan uu hogaaminayo in la waajaho ciidana la diyaariyay muddo ciidankii la diyaariyay waxa diyaar garowday ciidan ilaa 80,000 oo ciidana 80,000 80,000 ayaa raacday markaas inay dagaalka u raacdo nabi ilaa maartay boqorkii Taalut ah marka waxa dhacday marka ciidankii waxa la yiri maartay waa la dhaqaajiyay falamma fasala Taalut bil junud falamma fasala Taalut markii uu la baxay Taalut bil junud ciidankii oo la dhaqaaqay mar hadii la yiri waa la wada dhaqaaqay oo dad badan dadka laba isugu jiraan qaar hugunka iska soo raacaya oo waa la baxay iskaga soo baxay dad qadiyada iyo arinku dhabka yahay marka waa in la kala saaraa وحال يراهد امتحان بامريسان قال إن الله مبتليكم بنهر إلهي وحو إذن كو ابتلين يا وإذن كو امتحان يا وبي فمن شرب منه فليس مني قفكي وبيقاسي عبه وبيقا وحي كسو بحي الدونا يقو مدلو غينيي أو صحراء كسو سعودي أو قاجيسان أو أومن أو نفأه أيا وبيقا لصدو المريان فمن شرب منه فليس مني عدي بيها اسكو تابتو عبتا انيغا ايغا ميد ماهن بيوري طالوت عيدن كيغا ما سو راعيسو ومن لم يطعمه فانه مني قفكي ان ددمنا انيغو ايغا ميد عيدن كيغا كاسا كميدا الا من اغترف غرفه بيده الا عدي غعنتا درسته هل درسي غعنتا درسته او مركاسي waxyar dhuunta saa u marisa ayada dib ma lahayn laakiin in la cabo oo weelasha laga dhaansado oo jiiragaana laga buuxsado oo la yiraahdo jid dheer ay iga dambaysa qofka noocaasa iraaci ma yiraahdo wala baxay wabiga lagu tagay wabiga maartay Urdun iyo Falastiin kala bara
nahru urdun wabigii baa bayt almaqdis ay ka soo baxeen wabigii baa lagu habsaday rag fara badan baa biyihii ka dhargay qaarna maartay in yarna biyihii waxaan cabin iyo wax maartay hal darsaday noqdeen bal ka warama hadii ciidankii 80 kun ahaa 76 kun ayaa biyihii cabtay iska haraa la yiri ciidanka waa laga reebay ciidankii 80 kun ahaa 4 kun baa ku soo hartay waa la socday 4 kun waxa la hortagay ciidankii waxa lagu soo baxay Jaaluut oo cadawgooda watay oo jeesh caramram ah gaasas iyo guutooyin ay meesha ay fadhiyaan ayaa lagu soo baxay iyo dadkaanu 4 kuna nimankaana la iska celinayaa leeyahay markii halkaas la marayo koox kale hadana cabsatay oo waxay tiraahdeen قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده waxay yiraahdeen maanta wax awood u maleeyin طالوت iyo جالوت iyo ciidankiisa wax awood u maleeyin 80 kun 4 kun aan ka soconnaa rag iyo dhan biyo lagu reebay maaratay ma muwaajahin karna yiraahdeen ninka la yiraahdo جالوت ciidankiisa ma muwaajahin karna markaas waxa la yiraahday waxaa soo haray 300 iyo 14 nin baa soo hartay 3700 wax ku dhow meelahaasi waa hareen 314 kun oo ciidanka ahaa oo dagaalka soo aaday oo dhaaranayay oo maxaan ku raadin la celi weysna 314 waa cadadkii saxaabadii badar ka dagaalantay tiradooda oo kale intaas soo hartay قال ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وحير هذين إلهي ببريان سبحانه وتعالى إلهي وصبر نسي أو قمده نسوق أو قال ذا نوجر كربير هذين هل كان مركي مريسو أو عيدا كي ليسهر استاجي وحاصاب بحي وحاجر جرت وحيل مبارزة جالوت كي عيدا كوتي أو رجل ضخم أو حوق بدن أو دجالك ciidamada kaligiis jabin jiray oo awood iyo aqoon dagaal iyo geesinimo isku darsaday ninkaas soo baxay oo ciidankii soo hor istaagay maartay nabiga la socday Taalut la socday wuxuu yiraahday yaa ii soo baxaya waa la cabsaday nin u baxaa la waayay Taalut wuxuu wariyaan ninkan u soo baxaya waa laga joogsaday wariyaan ninkan u soo baxaya wax ku soo dhiiradaa la waayay ciidanka waxa la socda nabiyilaahi daawud oo wiil yar oo dhalinyaro ah marka la socda ilaahi daawud baa soo baxay oo maaragtay yiraahday aniga ninkan maaragtay la mubaarazoona la dagaalamay nabiyilaahi daawud marka waxa jirtay horay markii ciidanka la diyaarinayay oo ciidanka soo bixin oo diyaar garowga lagu jiray wiil yar oo wuxuu sameyn jiray ariyo raaci jiray 7 wiil baa la dhalatay asaga ugu yaraa ariga loo diri jiray oo ari jir buu ahaa waxa la yiri marka wuxuu aad u yaqaanay geedkan la yiraahdo warafka ayuu maartay shiishkiisa aad ugu fiicnaa marka nabiyilaahi Shamuel ayaa wuxuu yiri ninka dili doona Jaaluut waxa la ekaan doonta dircigaygan oo maartay wato ayaa asaga la ekaan doono yiri marka nabiyilaahi daawud aabihiis oo ciidanka kamid ahaa طبعا laga yaabay inuu u dhawaa oo maartay saas oo kale ayaa jaakadii wiilashiisa ku wada baroobay wiil kasta mid ay la egtahay male illa daawud oo ugu yaraa la ekaatay marka taas baa hore u jirtay waxa kale oo jirtay intii la diyaar garowga lagu jiray oo warka dagaalka iyo laga sheekeynay diyaar garowgiisa ayuu wuxuu yiraahday waa aadi doonaa bal dagaalkaasi aan u soo arko asagoo saas leh baa dhagax dhulka yaala la hadlay nabiyaal badan oo dhagaxyada ila hadlay nabigeenu kamid yahay alayhi salatu wasalaam dhagaxya wuxuu ku yiraahday ta'al khudni kaalayo aniga iqaado aniga ayaad igu dilaysaa Jaaluude dhagaxii soo qaatay haddana mid kale la hadlay saas oo kale mid saddexaad la hadlay dhagaxdii buu iska soo qaatay dagaalkii la soo aaday markii cid ninkii u baxda la waayay waxa soo baxay Daawud Taalut markuu arkay Daawud intuu la egyahay wiil yar oo dhalinyaro
haddana qasiirul qaama maaragtay gaaban uu yahay da'diisuna aad u yar tahay iyo ninkan khibradda leh oo xoogga leh oo maaragtay laga hebaysanayo wuxuu is yiraahday ninkan amuusan maaragtay ahal u ahayn waa ka leexday qof kale uu raaday waryaa kale waa la waayay mar walba asaga un baa dhahay anaa diyaara markii dambe u yeeray wuxuu yiraahday war heede horay ma u soo maartay wax dagaala iyo hore ma u samaysayo nin hore wax iskaga celiye ma tahay markaas ha anu arijir baan ahayo dhuruwa aragayna maartay soo weeraray baan maalin maartay ka uga sii dilay yiri dhuruwa waa yar yahay wax aan dhuruwa ahayn waliga ma tijaabis hayr maalinna saaso kale libaax baa maartay xoolaha iga soo weerarayo intaan garka qabtaan ka sii yiri marka ma kula tahay ninka inuu libaax ka khatar badan yahay markaas marka waa yahay wuxuu xasuustay in jaakadiisa ay la yiri la ekaanaysaa maartay ninkii la dagaalama wuxuu siiyey hubkiisii iyo faraskiisii iyo hubkiisuu siiyey markaasuu yidhaha dhaqaaq waa dhaqaaqay markuu gaalkii u dhow yahay soo laabtay ciidankii oo dhan baa cabsaday oo waxaa la yidhaha ninkii waxaa la yidhaahdaa mindhaa cabsi baa gashay wiilkii yaraa maaragtay cabsi baa wiilkii gasha la yidhi markaasuu wuxuu yidhaahdaa ma cabsanine wuxuu yidhaahday ilaahay awoodiisa ayaan ku guulaysanayaa maahane hubkan iyo faraskan iyo wax gaara ii tari maaye waxaan jeclahay waxa aan aqaano oo wax ku dili jiray ku dagaalami jiray inaan adeegsadaan ka jeclahay faraskaaga iyo hubkaagaba hoobu yiraahday markaasuu wuxuu qaatay warafkiisii buu qaatay markaasuu maartay dhagaxiibu ninkii markuu u dhawaaday kii wuxuu isiri cunugan xunka maartay qabo oo gacmahaaga maartay waa kaga cilbeel buu isiraad aad buu u yasay jaabkii maartay baashiisii ay ugu jireen buu gacanta la galay dhagaxiibu maartay damcayno soo qabsado saddexdii dhagaxo isku dhigtay oo hal xaba isku noqotay ayaa uga soo baxday warafkii uu galiyay waa la wareegay waa ku dhuftay wuxuu sameeyay maartay ninkii asaasuu maartay ku dilay marka yaanan soo dhaafine markii uu yiraahday qof soo baxa la waayay ayuu wuxuu yiraahday Taaluut yaa soo baxo ninkan la dagaalamo dila oo aan gabadhayda u guuriyaa mulkigayga iyo boqortooyadeydana aan qayb ka siiyaa buu yiraahday marka ayaa sidaas ku soo baxay Daawud alayhi salaam asaga ayaa maartay marka ninkii waqatala Daawud Jaaluuta nabi ilaahi Daawud ayaa wuxuu dilay Jaaluut buu dilay وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء إلهي مركز وحسي الملك بقرطويو والحكمة مارتي النبي النمدي أي إلهي سبحانه وتعالى سقدره ماشي أول بقر النبي أي أهيد داود مركي نينكي لقى قوليستي كدب واقيريو طالوت نبي جينا واقيريو دي إلهي سبحانه وتعالى داود بوح سقدره نبي النمدي بقرطويو دي اللبضة أيا إلهي سبحانه وتعالى سقدره وعلمه مما يشاء وح الله لو وحو دوننا إلهي وحبو كبري وحال بري ماركتي سيد الله سميه هبك وألنا له الحديد إلى غير ذلك مركا سيداس أي باركتي قصداسي كل ماتي إلهي وحلي سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ضدك هدان قاركود للدفاع إلهين وببعض قارك للدفاع الدفاع إلهين لفسدت الأرض دولك واسكفس هذه لها ولكن الله ذو فضل على العالمين إلهي مد فضل إدارات صاحبه وعالمين تمارت دمانتود مركا إن شاء الله تعالى قصدي هالكاس أي ماركتي أي كل ماتي وقصة طالوت وجالوت ومارت قصة بني إسرائيل والنبي الله داود عليه السلام هذا وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.